kaliya sababtoo ah gabadhu si hore ah ayay u qaangaartay maamulaha dugsigu wuxuu rumaystay inay tahay gabar anshax xumo leh wuxuuna ka eriyey dugsiga si kastaba ha ahaatee wiilasha xirnaa funaanado gacmo la'aan ah waa loo ogolaaday inay sii wataan fasalada noocan takoorka jinsiga ah wuxuu ka dhigay gabdho badan inay dareemaan bahdil iyo ceeb nidaam u janjeera wiilasha dhexdiisa wiilashu waxay xor u ahaayeen inay ka faalloodaan jirka gabdhaha sida naasaha ugu waaweyn barida ugu ad adag gabadha ay u arkaan tan ugu badan ee la seexan karta iyuun xitaa waxay qiimayn jireen gabdhaha iyagoo ku salaynaya muuqaalkooda waxayna diyaarin jireen liis ay ku kala sarreeyaan laakiin maalin ayaa arday cusub oo la wareejiyey oo la yidhaahdo ana ay dugsiga timid qofkii dhibaatayn jiray dugsiga mike ayaa u soo dhowaaday balse way diiday cado darteed mike wuxuu aflagaadeeyey ana isla markiiba waxay u tagtay maamulaha si ay cabasho u gudbiso balse maamuluhu wuxuu uun ku yidhi inay u dulqaadato markaas ayay ana garatay in maamuluhu si ula kac ah u taageerayo kuwa wax dhibaateeya maalintii xigtay ana waxay keentay joornaal ka hadlaya kacaanka haweenka qofkii dhibaatayn jiray wuxuu u maleeyey in isaga lagu wajahan yahay markaas ayuu mar kale dhibaateeyey ana wuxuuna caayay dhammaan gabdhaha ku dhiirada inay isaga ka hor yimaadaan halkaas ayay linda u soo gashay si ay ana u caawiso labadooduba waxay go'aansadeen inay ka hortagaan dulmiga waxay ku sawireen calaamado iska caabin ah gacmahooda iyagoo rajaynaya in gabdho kale ay ku biiraan laakiin maalintii xigtay linda cidna kuma arkin oo ku soo biirtay waxay dareentay inay nacas tahay markaasay u tagtay inay calaamada ka dhaqdo si lama filaan ah waxay aragtay isla naqshadii oo ku sawiran gacanta gabar kale oo u dhow laga bilaabo waqtigaas sheekadoodii la dagaalanka cadaalad darrada ayaa ku dhowaatay inay bilaabato